السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا wanaagsan dhammaan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo aan ka soo diyaariyay dhacdooyinkii dhacay 24 saac la soo dhaafay waa maalinimo Sabtiya 21 bisha saddexaad 2026 warka madaxdiisa Trump oo cunaqabateynta ka qaaday Iran fashilka muuqaalkan live-ka ah ee natiya diyaarinta cutubyo ciidan oo Mareykanku u dirayo Iran iyo dalalka NATO oo ka qanaasay go'aanada Trump uu qaadanayo Iran oo soo riday diyaaradihii lagu dhaadan jiray Mareykanku aadka u jeclaa taaka dibadda waxay ku abristay go'aan ka yaabiyay khibrada dhaqaalaha iyo military Mareykanku oo si ku meel gaar ah xabsiga uga sii daayay shidaalka Iran guulba masawa xeelad looga badbaadiyay kacdoon caalami ah kale sadoonka ayaa helay cadayntii u dambeysay oo ku saabsan shakhsiga ku dhex jira muuqaalka Netanyahu $12 bilyan oo Iran helayso iyo cunaqabateynta laga qaaday xogta u dambeysay ayaa sheegaysa in Trump uu muddo 30 cisho ah ka qaaday cunaqabateynta shidaalka Iran ee badda ku xiran tani waxay Iran u saamaxaysaa inay hesho dhaqaale gaaraya $14 bilyan maaha naxariis waa isdifaac Trump wuxuu ka cabsi qabaa in sicir bararka shidaalku u horseedo kacdoon gudaha Mareykanka iyo Yurub oo isaga looga soo horjeedo wuxuu rabaa in suuqa ku qaboojiyo shidaalka Iran si uu u helo waqti uu qorshaha dagaalka dhulka uu ku dhamaystiro fashilka muuqaalka live-ka ee Netanyahu oo muuqaalka u dambeeyay live-ka ahaa ee Netanyahu ayaa fashilmay kadib markii lagu arkay qalad farsamo ama waxa loo yaqaan digital error intii uu hadlayay waxa la arkay qayb ka mid ah wajigiisa oo gariiraya ama ruxmaya sidoo kale qadka gacanta marka si fiican u eegto gacantiisa midig ee muuqaalka waxa muuqda wax aan caadi ahayn shaati cad ayaa masuudka uga soo dhex baxaya sida maski oo kale taasina waa staan cad oo muujinaysa in muuqaalka lagu sameeyay AI balse nidaamka rendering-ku uu ku fashilmay inuu gacanta si dabiici ah u sawiro ama uu shaatiga markaa si dabiici ah u soo muujiyo dhammaan muuqaaladii u dambeeyay Israa'iil baahiyeen in Netanyahu ku saabsanaa dhammaantood waxay lahayn error digital waxayna dhammaantood ahaayeen muuqaallo wada AI ah marka la fiiriyey farsamooyinka soo dhex baxay warar sidoon ayaa sheegaya in Netanyahu laga yaabo in dalka ka baxsaday ama uu jiro xaalad dhaawac culus ama uu gebi ahaantiiba ku geeriyooday dagaaladii ka socday gudaha Tel Aviv markii la beegsaday gurigiisa oo kale adeegsiga AI-ga live-ka ah waxay muujinaysaa in Israa'iil ay isku dayeyso inay ka hortagto dhowr arrimood burburka nidaamyada ciidanka kacdoonka shacabka iyo fadeexad weyn oo ay kala kulmaan caalamka iyo Iran oo guul lama filaan ah ku sheegan karta Netanyahu ayga la adeegsaday ayaa baaritaano badan lagu ogaaday inay yihiin laba ay midkood waa midka loo yaqaan Deep Face Live iyo MetaHuman SDK labadooduba waxay subi karaan wax loo yaqaan bood dhabar qof fadhiya kaamirada horteeda markaas ayadu waxay wejiga Netanyahu daboolaysaa wejiga qofkaas asalka ah ayay ku daboolaysaa iyo aad ay ugu fiican tahay ayadu wejiga inay soo saarto inta badan balse waxay ku fashilantaa indhaha marqaafada qof indhaha isku qabanayo gacmaha ama xarakaadka kale ee jirka qofka dhaqaajinayo iyada ay soo gelayaan objects ama waxyaabo aan dabiici ahayn oo banaanka ka yimid dhanka kale gobol cusub ayaa muujinaya inay Iran soo riday diyaaradda F-35 ee Mareykanku ku dhaato iyadoo adeegsatay nidaamyada difaaca Ruushka ee S-400 ama nooca loo yaqaan Mavarba kentaalka Ruushku leeyahay iyo nidaamka difaaca gudaha Iran lagu sameeyo loo yaqaan Magic tani waxay dabar jab weyn ku tahay tiknoolajiyada Mareykanka xilli Switzerland ay joojisay agabkii gantaalada u sahlayay inay wax beegsadaan ee loo soo diriyay Mareykanka gargarowga dagaalka dhulka ah maxaa ka jiray Mareykanku diyaarinayo cutubyo ciidan oo gudaha u gala Iran wararka saa ka soo baxaya CBS News iyo NBC News labadaba ayaa xaqiijiyay in cutubka 82 ee ciidanka Mareykanka loo daabulay bariga dhexe Trump waxa uu ka fiirsanayaa howlgal xadidan oo lagu qabsanayo xarumaha shidaalka Iran iyo goobaha uranium-ta lagu kobciyo balse Iran waa ay ka warhaysaa dhaqdhaqaaqyada military ee Mareykanka u wado Iran waxay amartay dadka degan Ras Al Khaimah ee ku taala Imaaraadka Carabta inay magaaladaas ka baxaan maadaama loo aqoonsaday goob laga soo weeraray jasiiradda shidaalka Iran ee South Paris bahaysiga NATO wuxuu hadda u muuqdaa mid burburay wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa qirtay in xiriirka isaga iyo Trump uu aad u xun yahay waxay gabi ahaanba kala soo baxday ciidankeedii Switzerland Mareykanka ka xanibtay tiknoolajiyada shirkadaha Rolicon muhiim u ahaa gantaalada difaaca ee Mareykanka haddaanu fiirino maha suuqyada saadka ama saliidda meesha uu maray dhaqaalaha dunida ayaa geliyay gaar ahaan kadib weerarkii Raslafan ee Qatar oo dhaqaalaheedu hoos u dhacay Qatar 9% haddaanu fiirino
crude oil-ka ayaa maanta suuqyada caalamka ka maraya $145.5 ayuu ka marayaa, wuxuuna sameeyey sare u kac aan caadi ahayn. Gaaska loo yaqaan natural gas-ka LNG-ga ayaa maraya $45.2, wuxuuna 17% u istaagay dhoofintiisa. Doolarka ayaa indekskiisu gaaray 108, waana hoos u dhac ayaa ku yimid. Haddii dollars meesha ku suubino, haddii 30 maalmood ee Trump uu shidaalka Iiraan fasaxay ay dhammaadaan iyadoo aan xal la gaarin, qiimaha shidaalku wuxuu dhaafi karaa $180 halkii fuust. Saacadaha soo socda waxaa la filayaa fariin uu jeedinayo hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Mustafa Khamenei oo ah wiilka labaad ee Cali Khamenei. Fariinta waxay ku soo aadaysaa bilowga sanadka cusub ee Paris. Awoodda militari Iiraan weli laguma jebin dhanka hubka, inkastoo ay Tehran dhib gaaray, haddana waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaaradda F-35 iyagoo adeegsanaya nidaamyada horumarsan ee difaaca. Xiliga ku yaala Baghdad ee Mareykanka ayaa gumanayay waqtiyadii la soo dhaafay kadib weerar daroon ah oo Iiraan ku qaaday. Waxaa kaloo loo diiday diyaaradaha militari inay ka degaan Sri Lanka. Israa'iil waxaa soo gaaray dhaawac dhanka niyadda ah iyo sirdoonka ah kadib fashilkii muuqaalada Netanyahu iyo soo ridista diyaaradda F-35. Tunisia waxay isku dayeysaa inay badbaadiso $5 bilyan si ay u wajahdo saameynta dhaqaalaha ee dagaalka. Iiraan ay isticmaasho $14 bilyan ee shidaalkeeda ee loo fasaxay, waxay ku xoojin kartaa ururada gobolka proxieskeeda. Dagaalkuna wuxuu isu bedeli doonaa mid caalami ah oo aan la xakameyn karin. Waa saaxiibkiin Bakar Shaadili, halkanna waa Koriye. Intaan ku kulmi doonno tabinteena xigta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.